madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hogaaminayo oo ku sugan magaalada Bahardar ee dalka Itoobiya halkaas oo ka furmay shir looga hadlayo dhamaystirka heshiiska iskaashiga ee saddex geesoodka ah oo dhaxeeyay dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii uu gaadhay dalka Itoobiya halkaasi si ka duwan sidii hore loogu soo dhaweyn jiray madaxda Soomaalida loogu soo dhaweeyay ayaa waxa ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyo waliba madaxweynaha Eritrea iyadoo halkaasi loo qaaday astaanta qaranka Soomaaliya. shirkani ka furmay Madahar ee dalka Itoobiya waxa lagu wadaa in hogaamiyaashan gobolku ay iska xog wareystaan xaaladaha guud ee gobolka iyagoona si gaar ah uga wada hadli doona dhamaystirka heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee u dhaxeeyay dalalkani. mas'uuliyiintani iyo diblomaasiyiinta Soomaalida ee ka qayb galaya ee uu hogaaminayo wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale Itoobiya iyo Eritrea ayaa la sheegay inay wadaagi doonaan aragtida qorshaha dawladda federaalka Soomaaliya ee ku saleysan ilaalinta madaxbannaanida iyo waliba midnimada dalalka gobolka, xoojinta iskaashiga wax wada qaybsiga, daris wanaagga iyo ilaalinta xasiloonida amni iyo midda siyaasadeed ee gobolka. ilo ay heshay Markii Media Group ayaa sheegay in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo loo dooran doono sanadka soo socda dhamaadkiisa Gudoomiyaha Midowga Afrika oo noqon doona markii ugu horeysay madaxweynaha Soomaaliya. Gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa hadda waxa haya Muuse Afweki waxaana la sheegay in lagu marti qaaday madaxweynaha Soomaaliya in loo doorto. Itoobiya oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay u arkayeen kala qaybinta siyaasadda inay qayb weyn ka tahay Soomaaliya waxa muuqanaysa inay yaraatay faragelinta Itoobiya ee Soomaaliya iyadoo hore u sheegtay inay arrimaha Soomaaliya kala hadli doonto dawladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxa la sheegayaa in shirkani ka furmay Itoobiya looga wada hadli doono sidii wada hadallo dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland loogu bilaabi lahaa si loo gaadho dhamaystir heshiis ay wada gaadhaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Somaliland. Itoobiya ayaa 10 sano ugu dambeysay la aaminsanaa inay mucaaradka dawladda iyo waliba maamul goboleedyada dabada geliyaan taasi oo hadda muuqatay inay soo xidhantay. inkastoo heshiiska nabadda ee Eritrea iyo Itoobiya guuleystay waxa la wadaa in ay madaxda saddex geesoodka ah ee Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea ka wada hadlaan heshiis ay wada gaadhaan Djibouti iyo Eritrea taasi oo hadda bilow ah. madaxweynaha Soomaaliya ayaa sanadka 2018 si aan hore uga dhex muuqan jirin madaxda Soomaalida uga dhex muuqday heshiiskii nabadeed ee Midowga Afrika iyo waliba urur goboleedka IGAD kaasi oo ay ugu dambeysay shirkii ugu dambeeyay oo dawladda Soomaaliya ay ciidamo ugu dartay dagaalka koonfurta Suudaan iyadoona sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya uu ka qayb galay heshiis lagu dhamaystirayo khilaafaadka mucaaradka koonfurta Suudaan. guusha loo dooran doono madaxweynaha Soomaaliya ee la saadaalinayo ayaa noqonaysa mid muujinaysa dawladda Soomaaliya inay heerka ugu sareeya ka marayso in lagu marti qaado isla markaasina lagu amaano kaalinta ay ka qaadanayso nabadgelyada bariga Afrika.